Assalaamu calaykum. Waxaan ka hadli doonaa shanta magaalo ee ugu dadka badan Afrika. Haddii aad channelkan ku cusub tahay, fadlan subscribe saar si aad ula socoto fiidiyoyada aan soo gelin doono. Alexandria waa magaalada labaad ee ugu weyn dalka Masar. Dadka ku nool waxaa lagu qiyaasaa 5.1 milyan. Tirakoob la sameeyay 2019. Magaalada Alexandria waxaa la aasaasay 331 sano ka hor dhalashadii Nabiyullaahi Ciisa calayhi salaam. waxaa aasaasay Alexander the Great, boqorkii saldanadii baabaaday ee Macedonia. Baaritaan la sameeyay 2019 waxaa lagu ogaaday in Alexandria koriinshaha dalka Masar ay ka tahay 1.9%. Magaalada Alexandria waxay dhanka koonfur kaga beegan tahay Mediterranean Sea. Magaalada magacaha badan ee Johannesburg oo loo yaqaano Jozi waa magaalada ugu qaniisan South Africa, sidoo kalena waa magaalada ugu weyn isla wadankaas. Magaalada Johannesburg waxaa la dhisay sanadii 1886 waana mid ka mid ah 50 magaalo ee ugu dadka badan dunida. Baaritaan la sameeyay 2019 waxaa lagu sheegay in koriinshaha magaalada Johannesburg ay ka tahay dalka South Africa 3.1%, halka tirakoob la sameeyayna lagu ogaaday dadka ku nool magaalada Johannesburg inay gaarayaan 5.6 milyan. Kinshasa waa caasimadda Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ah ee dalka Congo, sidoo kalena waa magaalada ugu weyn dalkaasi Congo, waana magaalada saddexaad ee ugu weyn qaaradda Afrika. Tirakoob la sameeyay 2017 dadka ku nool Kinshasa waxaa lagu sheegay 11.8 milyan. Magaalada Kinshasa waxaa la aasaasay sanadii 1881 iyadoo xilligaas loo huuyay magaca Leopoldville. Sanadii 1996 ayaa laga bedelay magaca Leopoldville, waxaa loo bixiyay magaca hadda loo yaqaano ee Kinshasa. Dal ahaan marka laga fiiriyo diin ahaan, magaalada Kinshasa waa mid ay muslimiintu aad ugu yar yihiin. Magaalada Qaahira waa caasimadda dalka Masar. Dadka ku nool magaalada tani waxaa lagu qiyaasaa 19.5 milyan. Tirakoob la sameeyay 2018. Magaalada Qaahira waxa ay deegaan noqotay 2000 oo sano ka hor dhalashadii Nabi Ciisa calayhi salaam, balse Qaahirada casriga ah waxaa la aasaasay 969 sano kadib dhalashadii Nabi Ciise. waxaa aasaasay dowladii Faadimiyiinta. Dhismaha Babylon waa mid ka mid ah dhismaha ugu qadiimsan ee Qaahira. waxaa dhisay Roomaaniyiinta qarnigii 1. Jaamacadda Azhar oo ah jaamacadda labaad ee ugu qadiimsan dunida ahna jaamacad islaami ah ayaa ku taalo magaalada tan Qaahira. Dadka ku nool magaalada Qaahira waa dad muslimiin ah, inkastoo la sheego tiro aan muslimiin ahayn. Magaalada Lagos oo ku taala dalka Nigeria, dadka ku nool waxaa lagu qiyaasaa 21 milyan. Magaalada Lagos oo ah magaalada koowaad ee ugu weyn qaaradda Afrika waxay ahaan jirtay magaalo madaxda dalka Nigeria ka hor inta aan lagu bedelin magaalada Abuja sanadii 1991. Magaalada Lagos waa magaalo xeebeed ku teedsan badda Atlantikada, waana magaalada toddobaad ee ugu koriinshaha badan caalamka dad ahaan. Dadka ku nool magaalada Lagos 50% waa muslimiin, 40% waa Kristaan, halka 10% ay yihiin dad aaminsan hidooda. waad ku mahadsantahay daawashada muuqaalkan. haddii muuqaalkan ku cajabiyay, like saar si aad hesho muuqaalada xiga. subscribe channelkan. wixii faalooyin ahna noogu soo gudbi qaybta faala bixinta. mahadsanid.